mareykankii ayaa xitaa la cajabay doorashooyinkaasi ka dhacay Somaliland iska wadaaba Afrikaan iyo Soomaaliya. Trumpkii dhawaan la doortay wuxuu taagan yahay aan la wareega marxafiiska waxaana aqoonsi sii doonaa si dhaqsiyo ah Somaliland. waxyaaba cajiibka marka waxaa ka mid ah oo lagu dar hadalkaasi Somaliland waxay hogaaminaysaa iskoor inaba aan caadi ahayn oo cajiib ah oo waali ah oo doorashooyin ah. doorashooyinkaas oo dabcan kuwa nabad ah, xor xalaal ah, dimuqraadi ah inay ku qabteen dhulkooda oo geeska Afrika ah. waliba xilka ay ku kala wareegeen iyada oo ay dimuqraadiyad iyo nabadu shaqaynayso. dhawaan wasiir fiqi Somaliland buu soo dhaliyay doorashada Faransa sagoo darsan maxay horta ka waan qaadnaa inay yaraantiisii la awoogiiba ka qaadna wayna maalguur horta gabigiisuba aabihii naanaysiisa maalguur baa loo jiray anaga gaalkacayo iyo dhusmareebo aanan ugu keenkeen xildhibaanada beesha diray labada gole baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ay ugu hambalyeynayaan dawladda Somaliland qabsoomidda doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada siyaasadda. anagu sayla hadda waxaan fahmi lahahay in macallin fiqi nacaybkan faraha badan ay saaqalku uga yimid reerka uu ka soo jeeday macallin fiqi waa reer ay is ogol yihiin isaaq iyo Somaliland waxaana ka soo jeeday reerkiisa in macallin fiqi Jarnaal Caydiid. waxaanu cambaaraynaynaa hadalka mas'uuliyad darrada ah ee ka soo yeedhay wasiirka arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi. hadalka wasiirka waxa uu ka duulayaa aragti ku dhisan cadaawad iyo nacayb oo ku talinaysa burburka horumarka ay gaadheen shacabka Somaliland. bismillaah saaxiibayaal marka hore soo dhawaada marka xigtara muuqaalkan fiigayso meel fog gaaro intaana mawduucan caawa gudaha u gulin waxa raba marka hore inaan ku hormaro qodbadii taariikhiga ahayd ee maanta uu jeediyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. talaabada maanta qaada Muuse Biixi ku aqbalay doorashooyinka dhacay waxay ku tusinaysaa dawladnimada iyo siyaasadda qaangaarka ka jirta Somaliland oo yarta Afrika meel ka dhacdo madaxweynaha Afrikaan doorasho qabto laga helo doorashooyinkii si bila buuqana ku aqbalay natiijooyinka doorashooyinkaasi. Muuse Biixi taariikh qurux badan ay kaga tagay Somaliland iyo doorashooyinkeedaba. waxaan kan ka cadeynayaa inaanu aqbalay natiijada doorashada ka soo baxday oo ku guuleystay xisbiga wadani ayaan halkan ka cadeynaya shacbiga u sheegaya oo sharcina tahay sharaftuna tahay qarabisuna yahay ma aha maalin aynu murmayno oo isku qabsanayno oo dhexdeena khilaaf ka imanayo waa maalin aynu wada guuleysanay oo qarankeena kor u dhisnay oo horumar ka soo ahayn in badan hadaynu kulmiyanahay haddana ka ahaanayno ummadda waxaan u ballan qaadanaa xisbiga kulmiye inuu aqoonsan yahay oo aanu hambalyeynayno madaxweynaha cusub la doortay Cabdiraxmaan. waxa la yaab ka noqotay dadka daneeya ama isha ku hayay doorashooyinka Somaliland sida dhiiran oo geesinimada leh Muuse Biixi ku aqbalay in laga helo doorashooyinka uu qabtay. wadamada taageera ama daneeya siyaasadda Somaliland marka hore waxay aaminsanayeen maadaama cidda is dooranaysa ay tahay Afrikaan waliba ay ka sii yihiin Soomaali doorashooyinkaas dhici doona inay ka imaan doonaan muran habas ka yaraada murankaasi laakiin inta maanta ma dhicin waxay ku bilaabeen doorashooyinkaasi kuna soo dhamaadeen si bila tabasha. mareykankii ayaa xitaa la cajabay doorashooyinkaasi ka dhacay Somaliland iska wadaaba Afrikaan iyo Soomaaliya. Trumpkii dhawaan la doortay wuxuu taagan yahay aan la wareega marxafiiska waxaana aqoonsi sii doonaa si dhaqsiyo ah Somaliland. waxay dhahayn dawladda Mareykanku waxa ay u hambalyeynaysaa dadka reer Somaliland oo dabcan iyo doorashooyinkoodii quruxda badnaa iyo madaxweynaha la doortay Cabdiraxmaan Ciro intaba waa isku u hambalyeynayna ay leeyihiin. waxyaaba cajiibka marka waxaa ka mid ah oo lagu dar hadalkaasi Somaliland waxay hogaaminaysaa iskoor inaba aan caadi ahayn oo cajiib ah oo waali ah oo doorashooyin ah. doorashooyinkaas oo dabcan kuwa nabad ah, xor xalaal ah, dimuqraadi ah inay ku qabteen dhulkooda oo geeska Afrika ah. waliba xilka ay ku kala wareegeen iyada oo ay dimuqraadiyad iyo nabadu shaqaynayso. waxaase la yaab leh oo hadalkaasi la raaciyay tani waa mid ku dayasho mudan ama role model u noqon karta gobolka ama geeska Afrika. gobolka ama geeska Afrika adi Soomaaliya ka xanaaqaysa Soomaaliya ha ku dayataa diidanid laakiin geeska Afrika waxaa leeyahay ha ku daydaan Somaliland.
trubaskaas maraykanku uu tuuray cidday doontaba ha dhibtee waa sax waa xaqiiqo. somaliland geeska africa wuxuu ku hogaaminaysaa axsaab, doorashooyin, guddiyo dabcan hufnaan leh oo doorashooyin qabanaya, madax xilka ku kala wareegaysa sidii loogu talagalay, iyo amni la dheehan kara, la arki kara, la dareemi karo ayay ku hogaaminaysaa somaliland geeska africa. cid diidi kartaa oo dafiri kartaa ay ma jirto. haddii marka la dhaho soomaaliya nimankaasa u haysta arrimaha, dad baa iska diidan oo dhibsanaya oo qalad u arkaya oo maamul waaye, dowlad goboleed waaye iyo qabiil waaye iyo soo tuuraya. haddaba ma iyagaan wax fiican qaban mise adigaa qaban kari waayey wixii lagaaga baahnaa waay su-aasha. haddii adiga aad qaba lahayd inta ay qabteen waxaan dhihi lahayn waa maamul, waa qabiil, waa deegaan. laakiin adiga goormaad qaban doontaa dimuqraadiyaddan, doorashooyinkan, kambeynkan, isdoorashadan iyo xukun kala wareegan quruxda badan leh goormaadna gaarsiin doontaa? mikrofoonkan dagaalka iyo qabiilka iyo zuuga lasoo bixinayo iyo kuraastan laisku dhejinayo iyo xildhibaanadan kursiga la xiraayo iyo dadka maaragtay la handadayo iyo qaraxyo la geynayo goobaha doorashooyinka iyo madax kursaasti la cararayso oo dowlada shisheeye la aadaysa iyo waxaa goormee ayaad naga saari doontaa oo aan ka codayn doonaa degmo ka mid ah degmooyinka dalkeena Soomaaliya? heerka maanta ay joogto somaliland waxaana ammaana kumaysan mutaysan siyaasi ama xukuumad markaa joogta. waxay ku mutaysatay shacabkeeda. shacabka ayaa ah mashiinka dhaqaajiya somaliland. farqiga hadda u dhexeeya qofka kasoo jeeda xamar iyo qofka kasoo jeeda hargeysa waxa uu yahay qadiyadda. qofka ku nool ama kasoo jeeda xamar qadiyadda u dhiman karo waxay tahay qabiil, halka qofka kasoo jeeda hargeysana qabiilka uu kala weyn yahay qadiyadiisa somaliland. maalmihii dhawada ay taagnaayeen muranka doorashooyinka, anoo ka maqan dalka waxaan la soo hadlay mid reerheena ah. waxaan ku yiri waxaas ma samaysaan. markaas ugu yiri maye dalka naga burburaya. marka qofka kasoo jeeda somaliland tabasho kastoo uu qabo waxaa kala weyn jiritaanka somaliland. taa micnaheeda kama jiraan somaliland qabiil iyo qabyaalad, way ka jiraan, laakiin marka ay timaado qabiil iyo somaliland dadka majority-ga waxaa ku weyn qadiyadda somaliland. taasna waxaa ku cadeynaysa muuse biixi dadkii kasoo horjeestay oo riday xukuumaddiisa kow waxaa ka ahaa labeenta iyo haldoorka qabiilkiisa. dadkaasi way awoodeen muuse inay ku taageeraan kuna difaacaan qabiil. sidoo kale muuse maanta khudbadiisa ugu dambeysay inteeda badan wuxuu uga hadlay midnimada iyo qadiyadda somaliland, isagoo markaan la hadlaya dhalinyarada waayahan dambe social media ku sidata calanka Soomaaliya, ayagoona calankaasi u qaatay caradii ka dhalatay guuldaradii kasoo gaadhay muuse biixi doorashooyinkii 13 bishan dhacay. maynaan odhan oo kumay jirin haddii la dooran waayo oo codka la sii waayo waanu cadhoonayna iyo waanu xanaaqayna, kumay jirin. dhalinyarada waxaan u sheegayaa doorashadaanu gale waxay la mid tahay kubadda ciyaarayay, tiim kubadda ciyaarayay, laba tiim kubadda ciyaarayay. tiim waliba uu jecel yahay inuu goolasha dhalin badiyo. haddii laga badiyo qolada ciyaaraysay ayarun bay ka dareeraan, colaadna la isugu qaado. sidaa daraaddeed taageerayaasha kulmiye oo laga yaabo inay wax badan oo ay xusanayaan waxyaalihii la iska lahaa doorashada iyo nin caqli xumo wuxuu yidhaahdo iyo qaar ilaa imika wax wada waday waynu ka bislahay inagu waynu ka bislahay. sidaa daraaddeed kuwa la doortayna waa kuwii aanu isnaqaanay waa kuweeni waa Soomaaliland risku. ugu dambeyntii xildhibaan shaar wuxuu boodka la dulmaray Axmed Macalin Fiqi wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya. xildhibaanku wuxuu ka mid yahay xildhibaanada farakutiriska ah af iyo qalinba ku difaaca qaranka Soomaaliland. xildhibaanka Ilaahay cimriga iyo caafimaadka u barakeeyo. dhawaan wasiir Fiqi Somaliland buu soo dhaliyay doorashadeeda. Faransiiska u darsan maxay tahay? horta kaa waan aqaanaa inay yaraantiisii la awowgiiba ka aqaana wayna maalguur horta gebigiisuba aabbihii naanaysiisa maalguur baa la odhan jiray. caanaa gaalkacayo iyo dhusmareebo caanaa nagu keenkeen jira. nacaa noolaa buu ahaa, isagoo in yar buu ahaayo geela raaca. horta reer miyigaasuun buu ahaaye ninka dee nin magaalo soo galay maahae anigu waxba ku taayin maaye waar waad mahadsantayde kii meesha u doortay ayuun baan la yaabsanayde inaa maaliguur waa mahadsanta. taariikhda maalguur hadduuba hayo xildhibaanka waa dhulmar waana dad yaqaan.
maalinguur waxaa aada loogu yaqaanaa deegaanada ama gobolada mudug iyo galguduud laakiin xildhibaanku wuxuu qalday qabiilka fiqi iyo maalinguur qabiil kore ayay wadaagaan laakiin waa laba kala ardaa fiqi wuxuu kasoo jeedaa ardaa la yiraahdo ama qabiil la yiraahdo cabdalla sacad maahan cabdalla sacadkii sacad muuse waa cabdalla sacad habar gidir ah halka maalinguurna kasoo jeedo reer la yiraahdo reer hiloole waana reerka aniga abtiyaasha iyo ah fiqi magaciisa dhammaystiran waxaa la yiraahdaa axmed macalin fiqi qoyskiisana waa qoys ballaaran iyagana aada looga yaqaan gobolada mudug iyo galguduud wuxuuna kasoo galay siyaasadda dhanka maxaakiimta islaamiga ee mar la wareegtay talada maamulka Soomaaliya anigu se ilaa hadda waxaan fahmi lahahay ina macalin fiqi nacaybkan faraha badan ay isaaq halka uga yimid reerka uu kasoo jeedana macalin fiqi waa reer ay is ogol yihiin isaaq iyo Somaliland waxaana kasoo jeeday reerkiisa ina macalin fiqi jarnaal caydiid markii hore wuxuu wasiirka Ahmed Macalin Fiqi wasaaradda arrimaha gudaha wuxuu soo bedeshay oo yimid wasaaradda arrimaha dibadda waxay tahay isaaq nacaab iyo Somaliland nacaab intan hadda xilka uu hayo Ahmed Macalin Fiqi wax kale ma qabtaba wuxuu ka shaqeeyaa 24 saacadood la soo taagan yahay dagaalka Somaliland ma arkaysid bay soo ka shaqeynaya hawlo kale marka lama oran karo shaqadiisa ayaa ah meesha waxa ku jira wax dadka iyo anagaba naga qarsoon xildhibaanada beesha diray labada gole baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ay ugu hambalyeynayaan dawladda Somaliland qabsoomidda doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada siyaasadda waxaanu qiraynaa in geedi socodka dimuqraadiyadeed ee Somaliland yahay mid taabagala isla markaana yahay waayo aragnimo siyaasadeed oo faa'iido weyn ugu fadhiya ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan Geeska Afrika waxaanu cambaaraynaynaa hadalka mas'uuliyad darrada ah ee ka soo yeedhay wasiirka arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi hadalka wasiirka waxa uu ka duulayaa aragti ku dhisan cadaawad iyo nacayb oo ku talinaysa burburka horumarka ay gaadheen shacabka Somaliland aragtidani waxay halis ku tahay midnimada dadka Soomaaliyeed iyo wadajirkooda haddaanu nahay xubnaha labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaanu si adag ula xisaabtami doonaa wasiirka la anbaday shaqadii uu qaranka u hayay waxaanu sidoo kale ugu baaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya inay tallaabo ku habboon ka qaadaan wasiirka oo caadaystay kala dilka ummadda Soomaaliyeed